daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filmis oo aad uga barateen arrimaha Bollywood-ka sida Tamil, Telugu, Malayalam, Hollywood iyo kuwa kale oo badan. barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa superstar-ka Salman Khan oo sheegay haddii ay u suurtageli weyso guur labada sano ee soo socota xataa inuu aabo noqon doono isagoo wax guur ah sameynin sidoo kalena gogol dhaaf sameynin. Salman Khan waa 52 sano jir oo ilaa iyo haatan guursan isagoo sameeyay xiriiro kala duwan laakiin uu ku guul dareystay inuu ka miro dhaliyo. haddaba Salman Khan ayaa sheegay war lagu naxo asigoo sheegay inuu aabo noqon doono labada sano ee soo aadan. Salman Khan wuxuu yiri haddii aan ka baxo fikirka guurka ama ii suurtageli weyso waxaan isticmaali doonaa nidaamka surrogate. hadduu Salman maro nidaamka surrogate wuxuu noqon doonaa jilaaga saddexaad ee Bollywood-ka ka tirsan oo aan xaasaskooda isticmaalin isagoo maraya nidaamka surrogate sidaasna aabo ku noqon doono caruur hooyo la'aan ah. waa maxay surrogate? surrogate waa nidaam ay isticmaalaan inta badan reer galbeedka gaar ahaan waxaa isticmaala dadka ilmo la'aanta ku dhacday iyagoo la soo kireysanayo haweeney bacriminteeda fiican tahay kadibna shahwada ninka lagu beerayo ilmaha aysan sheegan karin hooyadaas dhashay sidaasna ay ku noqonayaan hooyo la'aan maadaama malaayiin dollar ay ku qaadatay heshiiskaas. sidoo kale Salman Khan oo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri maadaama aan 50 jiro ma aha waqtiga inuu cararayo markaan 70 gaaro caruurteyda waxay jiri doonaan 20 sano. sababta aan u rabo in aan caruur dhalo 2 sano ama 3 sano ee soo aadan waa aabe Salim Khan iyo hooyaday Salman Khan oo doonayo inay arkaan caruurteyda. sidaas daraadeed Salman Khan wuxuu taageerayaashiisa la wadaagay warbixin la yaab leh maadaama uu sheegay haddii 2 sano ee soo socota uu guursan waayo uu ka tala bixi doono dhammaan guur uuna mari doono nidaamka surrogate. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay superstar-ka Salman Khan oo sheegay haddii u suurtageli weyso guur 2 sano ee soo socota xataa inuu aabo noqon doono isagoo wax guur ah sameyn sidoo kalena gogol dhaaf sameynin. ama ogaanina inaad subscribe dhahdaan saxafi filmis, like, share fikirkiinana waxaad noogu reebi kartaan qaybta hoose. barnaamij mid caynkan oo kala intaan ku kulmi doono waa bahda saxafi filmis oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.